sidaasi oo kale energy bar waa chocolate-ka dadka gym-ka ciyaara iyo waxyaabahaas energy bar-ka ah loo yaqaan. sidaasi oo kale chewing gum-ka ama xanjada iyadana sidaas oo kale doofaarka haragiisa dhicaan laga keeno gelatin ah ayaa ku jira. Hard capsule-ka ama kiniiniga capsule-ka ee Soomaalida inta badan aad u cunaan ee qalajiha ah. Soomaalida qurbaha ku nool gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka waxay aad ugu fogaadaan inay cunaan hilibka doofaarka ama wax doofaar uu ku jiro inay cunaan ama ay taabtaan. sidaas oo kale waxay aad u diidaan ama ay ugu fogaadaan inay ka shaqeeyaan meel doofaar lagu farsameynayo. laakiin taas bedelkeeda maanta 95% dunida oo dhan wax soo saarka badankooda ee ka yimaada wadamada reer galbeedka Mareykanka iyo xitaa Shiinaha waxyaabaha productiga ay soo saaraan waxa ku jira wax ka yimid doofaarka hadii ay ahaan lahayd dhacaanka doofaarka ama haraga doofaarka ama timaha doofaarka ama dhagorta doofaarka. si walba haatee hadda ka hor barnaamij ayaan YouTube ka soo geliyay oo barnaamijkaas aan uga hadlay. barnaamijkan buuggan ayaan ka diyaariyay oo la yiraahdo Big 05049. buuggan oo gabadhan Hollandeyska ay qortay wuxuu sheegayaa wax walba oo hilibka doofaarka laga farsameeyo hadii ay ahaan lahayd gloveska hadii ay ahaan lahayd rasaasta ama xabada gumca ee qofka bini'aadamka ku dhacda ama x-ray-ga raajada iyo wax la midka. kama wada gaara dhamaantood inaan idin wada sheego laakiin waa idin kala qaybin doona barnaamijyo kale ayaan ka dhigi doonaa. maanta waxaan soo qaadan doonaa qayb kamida haraga doofaarka maxaa laga farsameeyaa. haraga doofaarka qayb kamida waxa laga farsameeyaa safety gloves waxa la yiraahdo ama gacmo gashiga adag ee meelaha shaqada looga shaqeeyo sida sawirka aad ka arki doontaan. Yurub markaad joogto way ku sheegayaan in Mareykanka in laga farsameeyo haraga doofaarka iyo kii laga farsameeyo looda ama geela ama waxa la mid ah. sidaas oo kale waxa laga farsameeyaa suumanka iyo jaakadada loo yaqaan leatherka ee ayaa laga farsameeyaa haraga doofaarka. iyagana way ku qoran yihiin hadii aad iska akhriso. dhanka kale waxa jira wax la yiraahdo hide glue oo inta badan alwaaxyada la mariyo iyagana waxa laga farsameeyaa haraga doofaarka oo la shiiday ayaa lagu daraa. waxa jira injectable collagen waa waxyaabaha cirbada wajiga ay dumarka saga durduraan ama fururiyaha ay ku weynistaan oo isku qurxiyaan. waxaana la isticmaalayay ilaa iyo 1976 dumarka ayaa isku qurxiya sida aad muuqaalkaba aad ku arki doontaan. sidaas oo kale waxa haraga doofaarka dhicaan ka yimid ama haraga doofaarka laf ahaantiisa la shiiday oo ku jiro beauty mask bahalka la yiraahdo ee dumarka wajiga ay ku xirtaan. waa marka ay doonayaan in wajiga waxyaabaha wasaqda ah iyo iska fujiyaan. waa beauty maskiga inta badan isagana wuu ku jira haraga doofaarka hadii productkaas laga soo farsameeyay wadamada Yurub iyo Mareykanka iyo xitaa Shiinaha. sidaas oo kale energy bar waa chocolate-ka dadka gym-ka ciyaara iyo waxyaabahaas energy bar-ka ah loo yaqaan mararka qaarkood looska iyo waxyaabaha qaarkood ay ku jiraan. ayadana way dhici kartaa dhamaantood ma ahan waxyaabahaas doofaarka inuu ku jiro marka Yurub iyo Mareykanka meelahaas lagu farsameeyo iyagana wuu ku jiraa. sidaas oo kale chewing gum-ka ama xanjada iyadana sidaas oo kale doofaarka haragiisa dhicaan laga keeno gelatin ah ayaa ku jira. lollipop-ka xanjada ninaca ilmaha ay dhuuqaan ee ninac qoriga loo yaqaan sidaas oo kale uu ku jira. cupcake-ga bahalka loo yaqaan ee cake yariiska sida sawirka aad ka arki doontaan isagana iyo sababta cupcake-ga asaga kuma jiro cupcake-ga dulshada ama keegaas kuma dhex jiro laakiin waxyaabaha lagu darayo borderka ee kor loogu darayo ama loogu qurxiyo ayuu ku jira doofaarka waxyaaba laga farsameeyay laakiin keega laf ahaantiisa kuma jiro. way ku dari karaan qaarkood meelaha bakery-ga. marshmallow dadka Yurub iyo Mareykanka jooga ayaa yaqaan gabi ahaantiisba Soomaalida ma cunaan laakiin dad qaarkood cunay waan arkay Soomaaliya. isaga gabi ahaantiisba doofaarka ayaa waxyaabahaas laga farsameeyaa. tiramisu bahal la yiraahdo ayaa jira dadka qaarkood ay cunaan isagana wuu ku jira mararka qaarkood inta badan wuu ku jira laakiin iska akhri isagana waad ka fogaan kartaa. Yurub iyo Mareykanka inta badan iyagu waxba ma qariyaan oo dadku way u sheegaan laakiin haddana sidaas oo tahay shirkado qariya way dhici karaan. ice cream-ka ama jalaatada sidaad u taqaan markaad Yurub iyo Mareykanka ku nooshahay inta badan waa lagu daraa. sababta loogu daro gelatinkiisa waxay tahay waxay leeyihiin resistant slow oo wuxuu sameeyaa meltingka inuu dhalaalo isla markii inuu dhalaalo ayuu doofaarka butterkiisa ama haragiisa la shiiday ayaa lagu daraa. marka
doofaarka sidiisaba marka qorraxdu waa u adkeysi og yahay marka waxyaabihiisa lagu daro ice creamka ama jalatada. sidaas oo kale low fat butterka waxa loo yaqaano oo yani waa butter yani subaga badan laga saaray isagana wuu ku jiraa. sababta loogu daro waxay tahay inuusan dhaqsi u dhalaalin. sidaas oo kale caanaha loo yaqaano UHT milk oo baakado ku jira isagana wuu ku jiraa. UHT milk sida sawirka aad ku arki doontaan wuu ku jiraa. qamrada naga shaqo kuma lihin wuu ku jiraa. wine-ka wuu ku jiraa ama beerka waxa loo yaqaan. sidaas oo kale cabitaanada qaarkood wuu ku jiraa. hilibka gasaacadaysan wuu ku jiraa. sababta hilibka gasaacadaysan loogu daro isaga ma aha waxa loogu daray waxay tahay in yani uu ka dhuuqo waxyaabaha hilibka dhacaanka uu keenaya ayuu dhuuqayaa hilibka doofaarka gelatinkiisa. marka hilibka lagu shubayo gisaca ayaa isagana lagu shubaa. sababta loogu shubayan waxay tahay inuusan hilibka dhacaan yeelan oo yani uu ka dhigo mid jafaaf oo aad u qalalan. cuntada loo yaqaano pet foodka oo xayawaanaadka bisadaha iyo waxaas la siiyo wuu ku jiraa. heart capsule-ka ama kiniiniga capsule-ka ee Soomaalida inta badan aad u cunaan ee qalajiha ah. labada caag ee casaanka iyo huruudiga ahaan jiray isagana waa uu ku jiraa sida halkaan aad ka arki doontaan. waa labada gees haragiisa ayaaba laga sameeyaa. laakiin haddii Turkiga iyo meelahaas laga keeno waa xalaal ay dadka dhahaan Allahu a'lam. laakiin Yurubtan iyo Mareykanka inta badan isaga ayaa laga farsameeyaa heart capsule-ka loo yaqaan ama capsule-ka qalajiha ah ee dadka ay cunaan sida sawirka aad ka arki doontaan. sidaas oo kale waxaa jira soft capsule waxa la yiraahdo. capsule waxaa jira oo aad يعني جلجليعة ومركا أفكار جلسيد حتى إسا المركا أفكار يعني كود اللاعية كاس إساقنا وكجرة انت بدن وكجرة كاس وحبالة كنينية انت بدن وكجرة كنيني والبعض عنيسو هدي وضمنا يوروب iyo Mareykanka laga farsameeyay iyo xitaa Chinaha iyo Hindiya wuu ku jiri karaa sababtoo waxyaabaha isku haya waa doofaarka haragiisa waa sida iyaga ay gabadhan xitaa buuga ay ku sheegayso sidaas oo kale wax la yiraahdo waxa jiro surgical gelatin sponge oo ah يعني marka dadka qalin lagu sameynayo ayaa la gelshaa macnaha surgical waxa la gelatin waa sponge yar oo dadka marka dhaawac oo kale saas lagu dhajiyo 3 cisho ilaa 4 cisho xitaa markaas degdeg ay u raystaa ayaa yiraahdaa. sidaas oo kale surgical gelatin antibiotic jiro oo isagana oo dadka qalinka sameynayo ay isticmaalaan sawirka saad ka arki doontaan waa surgical gelatin antibiotic isagana doofaarka haragiisa ayaa laga farsameeyaa. saas darteed intaan waa haraga doofaarka waxa laga farsameeyo inta harda aan soo sheegay waxa jira lafaha doofaarka waxyaabo laga farsameeyo iyo maxaa la yiraahdaa dhiiga doofaarka waxa laga farsameeyo isagana waan idin soo gudbin doonaa. laakiin maanta dadka dunida jooga ma dhihi karaan qof dhihi kara ma jiro doofaar waan ka dhaartay oo wax doofaar la xiriira ama ma cabin ama ma cunin ama ma dhuuqin wax la mid ah maxaa yeelay inta badan waxaas ay maanta dunida dadka ku harqiyeen allahna daawo allah noogu dhigo waxadan ogeyn dambi uma lihid marka insha Allah qeybaha kale waan idin soo gudbin doonaa hadii uu alla yiraahdo.